مسؤولينta dekedaha Somaliland ayaa maanta munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayo qaar ka mid ah shaqaalaha dekeda Berbera oo dhameystay tababar xirfadooda aqooneed kor loogu qaaday. Munaasabada shahaadooyinka lagu guddoonsiinayo waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta dekedaha Somaliland iyo maamulka gobolka iyo ka degmada Berbera. Marti sharaf ugu horeyn waxa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay shaqaalaha tababarka dhameystay maarayaha dekedaha Somaliland Saciid Xasan Cabdi. sida wada ogtiin sanadkii hore waxaanu keenay taag weyn oo casri ah oo ka duwan taagii hore aan haynay dabadeed waxaanu ku dadaalnay sidii aanu taagga ay ula jaan qaadi lahaayeen shaqaalihii hore ee dekeda dabadeed waxaanu samaynay maadaama shaqaalaha iyagu ay aad u fara badan yihiin waxaanu ugu talagalnay oo aanaan scholarship u wada diri karayn inaanu macallimiin khubaraha dibadda uga keeno oo aan uga keeno shirkadda weyn ee B&O Maritime kuwaasoo tababar ku siiyey halkan dekeda Berbera muddo ka kooban sanad iyo 3 bilood. الحمد لله رب العالمين ما أنت وحي صارين شغالة وعربية إنسان سيدي أقول شغالين لهاين هير عالمي أو أنولا كان قادر لهاين dekedaha caalamka geesta kale waxa iyaguna halka ka hadlay maarayaha shirkadda DB Well Super J iyo siyaasi Cali Guray oo reeb baraka booriyay inay ku milmaan siyaasadda Berbera custom managers and the Marine staff and distinguished guests. Today I would like to congratulate to Saeed and his team to complete another important milestone. waxaan kaga baxayaa halkan maanta fariin baan uga gudbinayaa reer Berbera wadanka waxa laga yaabaa inuu khilaaf siyaasi ka bilaabmo ama ka bilaabmayba baanaynu isnaqaanaayo wax walba waynu sii daynaa tabeedna khilaafkaas aynu ku wada dhex milannaa reer Berbera waxaan idin leeyahay haleelin idinku khilaafka dari kuma jirto gabagabadiina duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin iyo xogayaha fulinta dawladda hoose Cabdikayn Aadan Saciid iyo barada saaxil injineer Axmed Cismaan Xasan ayaa ku amaanay maarayaha dekedaha Somaliland wax qabadka tayeynta shaqaalaha dekeda Berbera. marka labaad maanta waxaynu aan la dabaaldegaynaa oo aanu la farxaynaa oo aanu dhiiri gelinaynaa shaqaaleynaha Berbera SBI Somaliland Port Authority ayaan la dabaaldegaynaa waxaan runtii amaantu wax badan manfac badan ma laha amaantu laakiin qofka xaqiisa iyo xuquuqdiisa in la sheego baa muhiim ah maamul haddaad aragto maamul waa maamul waa ka isbedel sameeya ee wixii loo dhiibay wax ka bedela waa taariikh nagu cusub waa meel aynu gaadhnay maanta waxaana keenay isbedel maamul baa keenay sidaa awgeed waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa maarayaha iyo inta la shaqaysa ka hoos shaqaysaba in ilaahay subxaanahu wa tacaala isagu bedel khayr qabo ugu siiyo waayo qofku waxa uu abaalgudi karaa waa ilaahay weyn mar labaadkana waxaan u maqnaqaynaa madaxda dekedaha Somaliland oo ugu horeeya maarayuhu oo ku xigo maaraya ku xigeenku iyo dhammaan madaxda kale ee maamulka kula jirta garashada ay garteen marka laga yimaado hawsha ay hayaan inay shaqaalaha dhiiri geliyaan waan idin salaamayaa hambalyadan ama xafladan qiimaha badan leh ee maanta ay hay-adii dekedaha Somaliland shaqaalaheedii ay wax bartay ay u qabanayso waxaan leenahay laba eray horta hadalku
dee waa la dhameeyey oo raggii maanta oo dhan hadlayay istaan kolba u lahaa qodobkaasaad ka hadlaya balsugunbu ka u dambeeya qodobkii odhanayay marka iminka waxaan leeyahay uun inaan duca uun ku sabootiyo iyo hambalyo waa khadar maxamuud axmed khadar xeefo telefishanka caalamiga ee Kalson magaalo xeebeedda Berbera